ku kaxeynaysaa meel kastoo xun bay ku gelinaysaa. dadka waa aragteen naftooda ma garanaysaa hanan waaya ee badanaa xaasidnimada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iska buuxiya. dadka waa aragtay wax kasta oo xasad ku amro way sameynayaan fi kulli shay. hada u firsatid waxa arkaysaa xasadku qofka ay xaasidayaan wax kasta oo ay sileeyihiin waxan u xun yahay sameeya way sameynayaan, iskama qaban karaan sababta naftoodii ayaa ma garanaysaa ayay ka adkaan waayeen. wa shamiri tashmira u tafaxaydo daacada u tafaxaydo tafaxayd weyn oo daaco isku diyaari in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adacdid, isku diyaari oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ina caabudid, isku diyaari oo salaadihii iyo quraankii iyo khayraadkii diyaar garow ay kaaga baahan yihiin sida meelaha kale ay isku diyaar gareysid. hadii xaflad lagaga yeero maanta dhan way hagaajinaysaa, maanta dhan waa dhaashaysaa, cadar bas ka buuxinaysaa, waa isdiyaarinaysaa intaan lagu iman. saasoo kale waxa la doonayaa inaad isku diyaarisid daacada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. innal muhibba idha ahabba ilaahahu, qofka wax jecel haduu jeclaado Ilaahay subxaanahu wa ta'ala daara al-fu'aadu wa ulhima at-tafkiira. fu'aadku iyo qalbigu wuu duulaa waxaana qofka lagu ilhaamiyaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku fikro. qalbigaagu haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jeclaado wuu duulaya, ama inuu qulubta kale ka sareeyo, macnaha markuu duulo qalbigu wuu sareeyaa, ama inuu qulubta kale ka sareeyo taas way dhici kartaa oo qalbigaagu haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jeclaado, haduu qalbi Ilaahay jecel yahay qulubta kale wuu ka sareenayaa. wax kasto adduunyada ugu macaan waa helaysaa, wax kasto ugu khayr badan adduunyada adiga iska leh. ama inuu qulubta ka sareeyo, ama inuu meel wanaagsan haysto sababtoo qalbigu hadii uu meel wanaagsan haysto, haduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jeclaado oo Ilaahay qalbigu uu jecel yahay way qalbigaasu meel wanaagsan ayuu haystaa. wa ulhima at-tafkiira, waxaana lagu ilhaamiyaa inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weynaantiisa iyo xadamadiisa uu ku fikro ayaa lagu ilhaamiyaa. waxa weeye al-qalbu alladhi bayna yadayhi, qalbiga mu'minka waxa la dhahaa yanaamu fi firaashihi wa qalbuhu yajuulu xawla carshi rabbihi subxaanahu wa ta'ala. qofka mu'minka wuu hurdaa oo waxa arkaysaa isagu sariirtiisa ama booskiisa uu ku hurdo oo ka tagin, laakiin qalbigu xaguu joogaa carshiga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa. macnaha Ilaahay buu ku fikrayaa oo qalbigiisu uu wacan yahay. oo meelaha ma garanaysaa qulubta kale iyagu dadka kale marka ay sida u soo kacaan hurdada sida uga soo kacaan meelaha ay isla markiiba xumaanta ka sameeyaan, isagu isla markiiba wuxuu sameeyaa khayrka. sababtoo iyagu xumaanta waxay u sameeyaan qalbigoodii baa xun oo meel xun buu ka soo kacay, oo qalbigoodu meelaha ma'wa shayaadiin ayuu ku wareegayaa, meelaha ay shayaadiintu galaan ayuu ku wareegayaa. markaana qofkan ma garanaysaa xun isagu qalbigiisu xumaanta ayuu ku wareegayaa oo waxyaalaha xun ayuu ma garanaysaa ku mashquulaya oo wixii xumaa buu sameeyaa. laakiinse qofka wanaagsan isna ma garanaysaa waxyaabihii wanaagsanaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka keenay ayuu sameeyaa. fas'al hidayataka ilaaha biniyatin, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hidayadiisa iyo hanuunka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u hayo al-hidayatu tawfiiq. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydiiso oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dalab. fakafaa birabbika haadiyan wa nasiira, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ugu filan inuu ku hanuuniyo kuna heliyo. insha Allah ta'ala baabkeeni waxaynu ku soo gabagabeynaa sifaatul muttaqiin. sideedaba waa inagii sheegnay soonka waxyaabaha laga faa'iido waxa kamid in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala laga cabsado. cabsiduna waa shay aad iyo aad u weyn, fadligeeduna aad u balaaran yahay. marka dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsada sifooyin fara badan ayay leeyihiin. sifooyinkooda waxa kamid yu'minuuna bil qaybi
إيمانا عظيما جازما وحي رميان قيبك إلهي سبحانه وتعالى وحي قيبه وأوجهي أي رميان وقيامه بيرميان أو أبا المرنتي بيرميان أو وحي إلهي سبحانه وتعالى أشياء أو دينه أي رميان وصفوينك إلهي سبحانه وتعالى أي رميان أو حياله أين وقين أي رميان النبي صلى الله عليه وسلم مركو كشكينا يو ويديني أصحابته إن مقرنا ساعات هلو تنولوشيك يو إني جيران كو إلهي سبحانه وتعالى كعب صنيا ونرتسا كعب صنيا إلهي سبحانه وتعالى ونبي إلهي سبحانه وتعالى مركو مقرنا ساعات كوا كشكينا يو أو مقرنا ساعات أوليهي ولقوليهي كوا صوحي كعب صنيا نار تالا إلهي سبحانه وتعالى وحدها يا وهل رأوها أو ميي أركين نارتي هلونا وحالق لها يا مي أركين مي أركين هلوتني إلهي سبحانه وتعالى وحدها يا وحان إذي مخارثك لي ملائكتاي إن أنارتا أي أن أركين وأي كعب صنيان إنك متباديو مركز وحالق لها يا وحي كويدي صنيان جنو وإلهي سبحانه وتعالى وحدها يا أو جنداس ميي أركين سيدها يا مي هذا إلهي سبحانه وتعالى وحو وقبلا قاضيا أما أولها يا وحن كلين دونا إن شاء الله تعالى وأن كو أبال برين دونا شيغاس جندا أنا أركين أيام كو أبال برين دونا مركانا قف مؤمنك وقف رميسا مالنتا يوم القيامة ولي إيمان لبعه صوبتها الإيمان والعمل إيمانكو مركو عملك معيسي هاي وعملك مركو إيمانك لصعده waxan si toos ah ayaa u arkaysaa maanta yawmal qiyaamaha aad si toos ah u rumeynaysaa adiga iyo rumeynta la timaado iyo ka kale ma garanaysaa ee iimaanka iyo rumeyntu la yimaado way kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin huda lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib quraankan hanuun ayuu u yahay dadka muttaqiinta kuwaas oo qayb ka rumeysan markaana markastoo ay qayb ka rumeysan tahay waxa ka mid tahay dadka dadka muttaqiinta ee sifooyinka muttaqiinta laga helay yacfuuna wa yasfaxun sifooyinkooda waxa ka mid ah dadka way cafiyaan wayna iska dhaafaan wayna tirtiraan waliba xumaantii almuhim waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wa an ta'fu aqrabu littaqwa ina iska cafisaan wax ayaa u dhow cabsi سيدا بإله سبحانه وتعالى دينتي سمركو كل شيء وح مكرنا ساج كرارة يا وح حمانة يا وح دلية أو كسو قارية مجرو أبدا تدفر بدن بوا حلقة يا دينت إن لقول دقمو إن وناك مكرنا سا لقول دقمو إن مكرنا سا حمان أي تاي كوفر بدن با كويس هايستان هدو بعد هسا إسكعفي هذا وحوار كيا عفسكو إن وشيء ديتكو يهي ليد إنه كويهاي إن مكرنسا عفسكو وناكيو صار إنه أسو سيادين أي موديان إسلام ركيبة تاسون وخالد أيام مسنين محايا لقف كان مكرنسا عايز هايستان وحلقة يابا إني هذا ناس أرق أو إني رأيس أرقتان وحلقة يابا إني كلام قنتهين أو لوركي سنوة إني رأيس أرقتان وحلقة يابا إن مكرنسا أتكرر دمتان با وأتكرر دمتان oo qofkii ay hayseen ka dhinto markaana waxan cafisku adiga wuxuu ku soo jiidaya farxad iyo inaad ka mid noqotid dadka muttaqiinta waxa weeye kuwa muttaqiinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka yaabaya kuwaasi ma garanaysaa waa dad wax iska cafiya sababtoo ah qofka muttaqiga waa qof aqli iyo garasho Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay hadii qof uu ku khaldamo hadhow niyada wuxuu ka dhahayaa war adba intaasoo qof ayaa ku khaldantaa wayna ku cafiyaan ama waxaad ka jeceshahay inay ku cafiyaan daadba qofkan iska cafi oo sidaadoo kale ka soo qaad marka dadka muttaqiinta waxa way ulul albaab waa dad aqli leh oo ma garanaysaa maskaxdoodu ay toos u shaqeynayso oo hidaayada iyo hanuunku iyo cabsidu ma garanaysaa waa shay aad iyo aad u qaaliya markay wax cafiyaanna way tirtiraan macnaha tusaalahaan qofkii muttaqiga uu imanaya xumaan baa ku sameysay uu ka cafiyay haddana hadhowtana wuxuu ku tirtirayaa inuu wanaag ku sameeyo waxa laga yaabaa qofkii dhamaaye
colaadu idinka dhaxaysay inuu wax wanaaga ku sameeyo wanaagyo fara badan hadhowtana wanaagii uu ku sameeyay inay meesha ka saarto xumaantii idin kala dhex martay markaana isagii ku cafiyay hadana wuxuu isku dayayaa inuu tirtiro sidaas ogtiin dad fara badan ba marka magaranaysa isbalfiska iyo magaranaysa qofku markuu xumaan kugu dhaho adna ogtahay waxaan inuu xun yahay dad fara badan ba waxay sameeyeen oo aqli leh oo iimaan leh oo taqwa leh ayaa waxay sameeyaan magaranaysa mar ka qaar waxay sameeyaan in ay xumaantii iyagu is-ilowsiyaan adigiina ay ku ilowsiyaan xumaanta inuu isagu fahmay xumaantii almiino ku samaysay qofkan uu fahmay laakiinse wuxuu